Sheekadii garaad wiil waal iyo cigaal ilay. Dhegaystayaal, sida laga garan karo sheekooyinka inaga soo gaaray, wuxuu wiil waal ahaa geesi dagaal yahan ah, haddana keligii taliyuu ahaa. Wuxuu ahaa daafaca iyo danaha daryeelka bulshadiisa, nin hurdada iyo harsigaba u seega, haddana wuxuu ahaa isla bulshadaas nin gacan bir ah ku maamula, marar badanna cayaayir ku laaya. Nin aad looga cabsado ayuu ahaa, sidaasoo ay ahaydna, waxaa dadkii uu u talin jiray ka soo dhex baxay, rag isku taagay, rag uu sina uga ilheli waayey. Waxaa ragaas ka mid ahaa, malaha uguna yaab badnaa, nin la odhan jiray cigaal ilay oo af iyo addinba garaadka ugu babacdhigay. Sidiisa ayuu gebyaa ahaa, oo sidiisa ayuu dagaal yahan ahaa, oo sidiisa ayuu dadka uga digtoonaa, goor walbana isaga ilaalin jiray. Waxay labaduba ahaayeen xigto dhow, ismase indha buuxin jirin. Wuxuu cigaal weligiiba ka hawoon jiray sida dadka kale inuu garaadka uga baqo. Nin la loolama waxna aan u ogayn ayuu ahaa. Sidaas awgeedna in badan buu garaadku isku dayay in uu dabinno u maleego. Marnabase waa ugu soo dhici waayey. Ma yarayn inta jeer ee uu soo diray dhalinyaro goor habeen ah gaadmo ku soo disha. Hase ahaatee, waxay ku soo noqdon jireen iyagii oo cigaal qaarna laayay, qaar kalena uu dhaawacayo, wax jaban iyo wax jiis ah uu ka dhigay. Waagii dambe wiil waal oo garanla si alle si uu cigaal uga ilhelo, ayaa goor ay habeen barkii tahay, waxay sheeko dhex martay dumarkii u dhaxay middood. Xilli dambe oo ay kala seexan lahaayeen, ayuu ugu faanay geyiga ballaarka badan ee ay ku dhaqan yihiin in rag oo idil uu isagu ugu xeel dheer yahay, ugu geysan yahay, nin u soo bareeri karaaba aanu ku noolayn. Markaas ayay waa dahabee waxay ku tiri, garaadow, arrintu maaha siday adiga kula tahay, dunida rag kalaa kula jooga. Waxay ahayd jawaab uu aad uga argagaxay, maxaa yeelay ma ahayn mid uu marnaba filaayey. Yaab iyo cabsi isku dhafan ayaa alle u keenay, waa kushadayo waa kullaaday. Meeluu joogayba shaki baa si degdeg ah maankiisa ugu soo ururay. Markaas buu weydaaristii uu ku fadhiyey inta kor uga booday qoftii dumar ahayd haw ku soo yidhi. Oo sidii libaax joog lala helay dusha kaga dhacay. Isagoo si laxaw leh hadba kol dhan ugu seeraarinaya kayuu ku yidhi, sheeg naa ninka aad og tahay, ee cid kula og aanay geyiga joogin, anigana ii babacdhigi kara. Ogowna hal haleel haddii aad iigu sheegi weydo kurkaagu kuma ooli doono oogadaada inteeda kale. Dabadeedna iyadoo isku dayaysa farihiisa xooggan inay luqunteeda ka fujiso ayay tidhi, garaadow, ninka aan sheegayaa waa midka igu soo dhiiraday oo isaga oo og inaan adiga kuu dhaxo habeennada aad iga maqan tahay igu soo dheelmada. Waa ninka waaga ii bariya isaga oo iga raba in aan dharka isaga furo. Markaasuu sidii hore si ka daran u carooday, umalkii ku soo kordhay ayuu qarsan waayey. Sida baarqab golongolay oo qooqii gugu ula tegay, ayuu qowlalada abur ka keenay. Wixii ay dhegihiisu maqleen ayuu rumaysan kari waayey. La soco qaybta xigta ee xiisaha badan ee sheekada.